wardadka been loo sheegay afartan qodob oo lagu heshiin leeyahay afarta qodob oo lagu heshiin leeyahay hore ayuu Mr. Fashil u sheegay inayna soconayn waxay wadaan waa bubug iyo waxaan soconayn waay ani ma bahdilayo horta ragga meesha fadhiyo ma bahdilayo laakiin waxaan aaminsanahay aniga qaasatan ahaan waxaan aaminsanahay in ay marnana dhicaynin yaa waa subac macalinka ka maqan yahay marka dee waa la subciye waa la iska dhigi karaa ma fahanto waa salaado iimaanka joogin oo tujinayn yaa ninka asiga laga rabo in meel lagu xirto oo laga saaro Villa Soomaaliya hadduu mar ku dhoofaya magaca Villa Soomaaliya hadduu mar dibadda ku aadaya magaca Villa Soomaaliya hadduu mar dhex fadhiyo Villa Soomaaliya baarlamaankii labada aqal ee shalayto dhacay haddii muli meeshii fadhiyaan de wax soconayo aniga uma jeedo yaa waa baabuur afarta lugood laga banjariyay ayaa la rabaa in lug lagu oo riixitaan lagu socodsiyo intuu gaaraa halis weydii intuu gaaraa maamul goboleedaashan haddiina magaalo walba aan tegi karin hal magaalo maxaa ku soo koobay haddayna magaalo kasta tegi karin dee meel ma heestaane marka dee maamul goboleed inoo faaneen marka maamul goboleedaasha inoo faaneen marka adin dee dalka waa kala qaybsan dal la kala qaybsada male waxaanaytan waxaa la rabaa beentooda in la tuso waqtigan lagu dheereeyo ma fahanteen yaa waxaana runta nimanka xaqa u lahaaya imaanay nin kasta meeshuu leeyahay ha ka tashada nimayow Soomaali ma soconayso dadkaanayti ilaahay ugu og wallahi inay wax rabin dhalinyarada meesha soo istaagtan oo waqooyiga oo dhehayso dee u doodayso dee dalka waa la kala xigsaday nimayow waa la kala qaybsaday meel walba xaqooda ha u doontaan meesha dagaalkooda ay tahay been iyo burug ayaa meesha lagu hayaa wax kala soconayna ma leh runta la isku sheego Soomaali way kala tagtay qof walba deegaankeeda ay wax ku leedahay deegaankeeda waxa u doonato qof walba meeshay asalkeeda ee sheeganayso ee waa xukuma waa deganahay dadkeyga waa ay ku faanayso ha tagto waxeeda ha cunto Soomaalina ma israaciisay way kala guuraysaa